الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. موضوعنا عاوة الله حريرا صلة الرحم قرابة حريرين قرابة حريرين تيرا وعطيت كوريا دخل المسلمين تارا gaalada waa ogtihiinoo markuu ilmuhu 18 jir gaadho guri gaar uu iska galaa odaygii islaantu markay weynaadaana dowlatul muslimiin baa la geeyaa xanaanada dadka waaweyn wax isku xidhanba ma leh ummadda islaamka arrimaha ilaahay uu ku galladay wey ee dheeraadka ah uu siiyey waxaan odhan karnaa dadka dabadu ama jaaliyadaha dabadu ee Soomaalidu aad bay ugu wanaagsan yihiin silatu rahim waayo ummaddu waxa ay ku nooshahay iyo biilka ay qaadanayaan in badan oo ka mid ihi dabada looga soo diraa runtii taasina waa mid ay ku amaanan tihiin waxa si aynu ka hadlaynaa waxa weeye si caam ah ayaynu u hadlaynaa qofkii mowduuca ku wanaagsan uu ku sii bushaaraysanaya qofkii wax ka dareemaya ama tawatur iyo turuntura ay kaga jirtaana inuu dhiirado canaasirul mowduuca iyo qodobadiisa waxaynu akhriyi doonaa nusuusta ka waramaysa fadlu sila dhiiri gelinaysa dadku inay qaraabada xidhiidhiyaan qiimaha ay leedahay daliilo kala barbaryaa loo sheegaya cuquubatul qadc in qaraabada la gooyaa dhibka ay leedahay qodobka saddexaad waxa weeye al-umuur al-mu'ina ala sila waa arrimo kaa saacidaya oo ku sahlaya inaad qaraabada xidhiidhiso arrinta afraad waxa weeye asbaabul qatiica qaraabo goysnimada waxyaabaha kalifee keena qofka wax xidhiidhiya waa kee waxa markaa aynu xusi lahayn ugu horeyn inaynu tilmaano tacriifu sila qaraabadu waa kuwee la xidhiidhinaya qaraabada la xidhiidhinaya culimadu waxa ay ku tilmaameen kullu man tarbituka bihi sila nasabiya min jihati al-ummi aw al-ab waa qof kastoo xidhiidh ka leedin dhinaca aabbo iyo dhinaca hooyo ayaa nasabnimo iskaga keen xidhaysa ويدخل في ذلك من تربط به صلة سببية من النكاح أيضا وهم الأسهار qof kastoo xidhiidh idin ka dhaxeeyo xididnimo istawa waxa uu kamid yahay raximka halkan lagu sheegayo marka waa tol iyo xidid labadaba qaraabada ayay soo galeen nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ummadda markii uu dardaarayay waxa uu yidhi masar marka xoreysaan buu waa dadkeeda halkaa u samafalo hagaajiya waxa aan ku leeyahay nasab iyo xididnimo ayaan ku leeyahay nasaban wasiiran markaa xididnimadu waxay ahayd xaaskiisii addoontii uu qabay maariya alqibtiya ayaa ka soo jeeday dadkan aqbaada ee masar nasabkuna waxa weeye hooyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiisii fogeydee nebi ismaaciil dhashay ee la odhanaya aajara ama haajara ayaa ka soo jeeday masar waad dareemi karaysaa aftirsimada intaa la eg ayaa nabigu uu xusaya calayhi salaatu wasalaam xidid iyo xigaalba waa ku leediina marka xoreysaan masar hagaajiya buu leeyahy waxaynu taa uga jeednaa aragtida soomaalida ayaa waxa ay tahay qofka xagga aftirsimada ay wadaagaan qaraab uu qabaa qofka ka xididtinimo ay wadaagaanna waa kuwan kaw kaga siinaya waxaa laga yaabaa inanka wiilka walaalkii u dhalay iyo ka walaashii ay dhashay inuu kala arkayo inay laba kala qolo yihiin waa ka ay midna adeer buu yahay midna abti buu yahay idan markaa qur-aankana ilaahay markuu inoo mana sheeganaya wuxuu tilmaamay inuu basharkii abuuray uu ka yeelay nasaban wasiiran basharkii baan abuuray baa ilaahay markaasuu ka yeelay nasaban wasiiran uu isku cadafkuna had iyo jeer sida loog yahay taqaayur iyo tamaathul buu keena tamaathul fi lxukmi walicraab macnaheedu waxa weeyaan wixii samafale ay leeyihiin qaraabadu xagga nasabka ah xididkiina waa leeyahay fadliga dhiirinaya nusuusta dhiirinaysa fadliga uu leeyahay qaraabo xidhiidhintu haddaynu qaarkood soo qaadanno waxaa ka mida
in la tilmaamay sababun liziyaadati alcumr sababun sila wa silatu raxim shicaaru liimaani billaahi walyowmi alaakhir inuu qaraabada la xoreeyaa astaan iyo calaamad weyn waxay u tahay addoonkani inuu ilaahay rumaysan yahay aakhiro inuu qaraabadiisa xidhiidhiya waa arrin diina maaha ijtimaaci oo keliya saa daraaddeed ba rasuulka ilaahay wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri falyasil raxima xadiidkii bukhaari qofka ilaahay rumaysan ee aakhirana rumaysani qaraabadiisa ha xidhiidhiyo islaamku waa diin aada u naxariis badan dad kastoo isjecel haddana wuu isu dardaarayaa qaraabo xidhiidhintu faa'iidooyinkeeda iyo fadligeeda waxaa ka mid a sababun liziyaadati alcumri wa basdi risq laba arrimoodoo dadku ay jecel yihiin inaad qaraabadaada xidhiidhiso ayaa sabab u ah waa cimrigoo kuu dheeraada iyo calafkaoo kuu kordha haddii maanta la yidhaahdo reer magaalka aada u jecel cimrige oo kuwa odayaashu ka dagaalamo marka la yidhaha waad weynaatay dee weli waan yara dhallinyaraanay ba idhaha weli 40kii baan taaganay halkan nebigu wuxuu tilmaamayaa qofka qaraabada xidhiidhiya wuxuu yihi man axaba an yubsata lahu fii risqihi wa yunsa'a lahu fii aharih falyasli raxima qofka jecel in cimrigiisa la dheereeyo arsaaqadiisana loo kordhiyo qaraabada ha xidhiidhiya buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka culimadu waxay isweydiiyeen sababtii nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka inoogu sheegay markuu ilmuhu caloosha hooyada ku jiro in la qoray cimrigiisi iyo calafku cuni doono sidee loo kordhinaya laba arrimood bay culimmadu kaga jawaabeen mid waxa weye in la idhaahdo waa loo barakaynaya arrintuna baraka haddii la arko badnaan kasta way ka qiimo badan shaygu tirada ma ahe waa tayada marka cimrigiisu qadar kasta haade waa loo barakaynaya wuu badan yahay markaa si kalena waa lagu fasirayoo laba cimri baa qofka marka horeba ilaahay u samaynaya hadduu qaraabada xidhiidhiyo cimrigiisu waa intaa waa 100 maalan hadduu qaraabo goys noqdana 60 baa loogu soo ururinaya isagii baa doortay cimrigii gaabnaaba si kastaba haatee xadiidka saxiixa uu tilmaamay idan markaa arrin sahlan ma aha fadliga waxaa ka mid a silatu raxim tajlibu silata allahi lilwaasil inuu addoonku qaraabadiisa xidhiidhiyo tol iyo xididba casabaynu inagu naqaan xasabaynu idhaahnaa xasabo xidhiidhka uu qofku leeyahay xididada uu leeyahay oo imika soomaalida hadday iswada waraystaan dee bari iyo galbeed oo isku soo wada xidhmaya ama tol buu noqonaya ama xidid buu noqonaya ilaa hablihii iyo ehelkii baa la wada kala gursado mid waliba meel bay maraysa marka inuu qofku qaraabadii xidhiidhiyaa xidhiidhka ilaahay bay sabab u tahay nebi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay abuuray khalqiga ee uu dhammaystiray raximkiibaa istaagay alraxim qaamat araxim markaasaa waxay tidhi ilaahayow halkan markaan taaganay adaanku magan gelaya waxaanaan kaa magan gelayaa in la igooyo markaa ilaahay wuxuu uhi miyaanad raalli ka ahayn inaan xidhiidhiyo qofka ku xidhiidhiya oo aan jaro oon gooyo qofka ku gooya maya intaas way qancinaysaa bay tii ballankaasa ayaa u yaalla ilaahay iyo qaraabadii idan markaa qofkii xidhiidhiyey ilaahay baa xidhiidhinaya kii gooyana ilaahay baa goynaya waxaana iska macruufa addoonku ilaahay gooyana calafu harin silatu raxim min acdami asbaabi dukhuuli iljanna waa fadligii baynu ku jirnaa ay tahay qofka muslimkii inuu ku bushaaraysto kuna talagalo marka laguu sheegayo waxaad samaynaysa fadligiisana wax ku dhiiri gelinaya weeye oo xaqahoo runa oo ilaahay rasuulka ka yimi markaa qaraabada oo aada xidhiidhisaa waxay sabab u noqonaysaa inaynu jannada gallo innaguna intaynu ifkan joogno waxaynu ilaahay ka iibsanayno aynu u ordaynaa waa inaynu janno helno waayo waxaynu ogsoonnahay adduunyadu inaanay janno ahayn wax kastood ku heshaba meel lagu raaxaysto lagu nasto maaha laakiin waa meesha transitka ee safarka lagu marayo ee la hawshaysan yahay idan addoonku adduun kasta ha helo awood kasta ha helo aqoon kasta ha helo wuxuu u baahan yahay oonu marnaba ka maarmaynin inuu ilaahay jannadiisa ka iibsado subxaana wa tacaala asxaabiga la odhan jiray abi ayuub alansaari waxa uu nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ninkaasi wuxuu uhi waxaan ku weydiin lahaa akhbirnii bicamalin yudkhilunii aljanna yaa rasuula allah rasuulka ilaah waxaad iga warantaa camali geliya jannada rasuulku waxa uu ihi tacbud allaha laa tushriku bihi shayan watuqiimu salaa watu'ti zakaa watasilu raxim xadiidku saxiixaynku ku yaala
ilaahay baad caabudaysaa keligii u shariig yeeli maysid salaadaad tukanaysaa sakadaad bixinaysaa arkaan islaamkii muxuu raaciyey qaraabadaad xidhinaysaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa asbaabta lagu helayo jannada ilaahay lagaga iibsanayo lagu mutaysanayo qodobka shanaad ee ka mid a fadliga qaraabo xidhiidhinta silatu raxim daacatu lilaahi caza wajal haddaad qaraabada xidhiidhinayso qaraabada tilmaantaa lahaynu hore usoo sheegnay macnaheedu ma aha keliyahun caatifadii iyo maxabadii ijbaariga ahayd ee qasabka ahayd ee xigtanimoon inaad ku xidhiidhinayso keliya maaha dadka sokeeyu dee waxay ku wada socdaan inay dad yihiin xigto ah oo isjecel laakiin waxaad u niyoonaysaa inaad ilaahayna ku adeecayso subxaanahu wa tacaala si camalkani cibaadadiis u noqdo cibaado dhaba u noqdo qofka xidhiidhiyey qaraabadii waxa uu gutay amar ilaahay buu ka jawaabay oo si ficila uga jawaabay ilaahay baa wuxu uhi waladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal wayakhshawna rabbahum wayakhaafuuna suu'a alxisaab muminiintu ilaahay ammaanaya sifooyinka qaaligay leeyihin markaasaa ilahay wuxuu uhi muminiinta ammaanta le waa kuwa qaraabada xidhiidhiya wixii ilaahay uu faray in la xidhiidhiye xidhiidhiyaanoo qaraabadu ay kow ka yihiin waa shuyuucu lmaxabati bayna alaqaarib in qaraabada la xidhiidhiyo waa la isku jeclaadaa islaamkuna wuxuu u yimid dadka quluubtooda inuu isu geeyo wax kasta oo quluubta muminiinta isu geynaya islaamku waa u dardaaray oo dabcan wixii wanaagsanuuna wax kastaoo kala geynayana waa la diiday in qaraabada la gooyaa in qaraabada la xidhiidhiyaa waa rifcatulwaasil qofkii dadkiisa iyo ehelkiisa iyo ummaddiisa xidhiidhiya ee ixsaan iyo samafal la dhex taagan iyaguna kor bay u qaadaan hal jazaau lixsaani ila lixsaan aqoon buu ku kordhinayaa maalan awood buu ku kordhinayaa kii itaalka daran adduun buu ku kordhinayaa oo waxbuu siinayaa arin buu ku kordhinayaa wuu la talinayaa oo si fiican buu hogaaminayaa ilaa intuba adduunka kama dhacaanay intuba adduunyadaad bixinayso waa la mid inaad awood siiso aqoon siiso marka rifcu ka helaa qofku oo markaynu inteenani garbaha isqabanayno aynu istaageerayno qofku sharaf buu ku leeyahay bulshadiisa waayo waxay u arkayaan qof aanay ka maarmayn oo qiimeeye iyaguna way qiimeynayaan intaa waxaynu raacin lahayn oo qodobka labaada cuquubatu taariki raxim waa arrin dembiya iyaduna in qaraabada la gooyo dunuubta ku jirtaa kabaa'irta ah ee waaweyn sidaa daraaddeed cuquubada uu yeelanayo adduun iyo aakhiraba qofku hadduu qaraabadiisii gooyo dabcan oo ehelkii iyo usraddii iyo ummaddii aynu ka soo warramayne marka u horeeya qur-aanka kariimkaa lagu nacdalay qofku hadduu ehelkiisa iyo qaraabadiisa gooyo waayo diintu waxay og tahay dadkii ka agdhowa hadduu jaray yuu hadh u jiidaya kuwii ay isjeclaan lahaayeene ka agdhowaaye lagu ogaaye uu taageeri laha hadduu ay ka quusteen oo uu tuuray bal kuwa kale u talinaya wuxu tarayaa waayo ilaahay baa waxa uhi fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allah faasamahum waacmaa absaarahum waxa aa xaqiiqo ku tihin buu ilahay yidhi haddaa ilaahay kasii jeesataan in dhulka kharibtaan qaraabadana goysaan dadka dhulka ilaahay fasahaadiya ee macsiyo iyo diin la-aan ku fasahaadiya qaraabadana gooya waa kuwuu ilaahay nacdalay ee indhala xaqana way ka indhalayin waana nacdal baana dusha looga tuuray way nacdalayin sidaa daraaddeed baa imaamkii weynaa cali ibnu xusein zayn ulcaabidiin ee cali awowga u ahaa cibaadada badnaa waladkiisii buu la hadlay wuxuu uhi yaa bunay laa tasxabanna qaaica raximin aabba hala saaxiibin qof qaraabogoysa hala saaxiibin fainii wajadtuhu malcuuna fi kitaab illaahi fi alaaثati mawaaطin waxaan soo helay buuhi qur-aanka ilahay isagoo ku nacdalay siduu cumar binu cabdilcasiisna wuxuu lahaa nin buu la telinayo wuxuu ihi hala saaxiibin qof casulwaalid ah oo waalidkii caaq ku ah waayo intuu waalidkii gooyo adiga ku xidhiidhin maayo qofka waalidkii gooyey adna wuu ku goyna saaxiibtinimadiisa ha isku hadlayn buu lahaa qaadicu raxim qofkii qaraabada gooyey min alfaasiqiina alkhaasiriin sidoo kale wuxuu ka mid noqday dadka qur-aanku uu ku sifeeyey qof khasaaray oo allana ka fogaado faasiq noqday waa daliilada muujinaya dembigan inuu yahay kabiira min alkabaa'ir dunuubta waaweyn liiskeedu ku jiraa
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون inay khasaareen oo faasiqiin baa Ilaahay ku sifeeyay aayada dadka wixii la faray in la xiriiriyo oo qaraabadu ay kow ka tahay kuwa gooyay qaraabo goysnimadu walaalayaal waxay noqotay waa cuqubo soo degdegta cadaabka aakhiro ka hor ayay leedahay inuu qofku ehelkiisa gooyo iyo ummadda ay iska agdhow yihiin ee toosin iyo talaba ku lahaa iyo arrin iyo adduun inuu gooyo jaro waxay leedahay cuqubo soo degdegta oo looga jeedo waxaynu u naqaanay inagu nafsi baynu nidhaa ninkaa hebel nafsi baa haya nafsi baa ku dhacay nafsigu waxa weeye cuqubadii soo degdegtay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid waxa uu ku yidhi culimmadu ay tilmaameen mukharijiintu inuu sugan yahay maa min dambin ajdaru an yucajila allahu lisaaxibihi bilcuqubati fi dunya maca maa yadakhiru lahu fi laakhirati min albagyi wa qatiicati araxim ma jiro dembi cuqubadiisu ay ka degdeg badanta iyadoo cuqubadii aakhirana ay dambayso laba dembi kibirkiiyo gardarrada waxa la yidhaahdo iyo qaraabo goysnimada qofku hadduu dadka gardarro ku dulmiyo ama qaraabadiisiiba gooyo labadaa hadduu isku daro cadaabkii aakhiro u dambeeyey marka laga tago mid soo degdegaa jira buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qodobka afraada tilmaamaya ciqaabkii iyo balaayada loo yaboohay camalkan xun qofka sameeyey laa yurfacu lahu camal walaa yaqbaluhu allah waxaynu had iyo jeer u ordaynaa in u dadaalaynaa oynu ilaahay weydiisanaynaa acmaashaynu samaynayna inuu aqbal inoogu jawaabo inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin ilaahayna wuxuu ihi waxa rabbi wax ka aqbalaa kuwa ilaahay ka cabsanaya marka insaanka qaraabadii gooyey camalkiisii la aqbali maayo iyaba waa cajiib wuu tukaday wuu sadaqeeyey wuu soomay waa lagu soo celiyey subxaana allah arrin adag wey xadiid abi hureyra uu warinayo sanadkiisana albaniya rag kaleba ay ku tilmaameen inuu xasan yahay fii saxiixi tarkiib watarhiib uu sheekh ku tilmaamay ayaa nebigu waxa uhi calayhi salaatu wasalaam ina acmaala bani aadam tucradu cala allahi tabaaraka wa tacaala camalada ilmo bani aadan samaynayaan ilaahay baa la horgeeyaa gelinka hore aan idhaahna cashiyata kulli khamiisin leylata aljumuca maalin wal oo khamiisa habeen waloo jumca soo gelayaba camaladaynu samaynayna ilaahay baa la horgeeya falaa yaqbalu camala qaatici raxim qofka qaraabada gooya camalkiisii ilaahay ma aqbalayo camalkii loo gudbiyey ilaahay wuu soo celinayaa waa arrin aada u cajiiba qofkii wuu tabcayaa wuu dadaalayaa laakiin foosto gulla buu dhaaminayaa wixii uu ku shubay xagga dambe ka baxeen waa nasiib daray sida ismu ogaa qadcuhaa qadcun lilwasli maca allah inuu insaankii gooyo qaraabada oo xidhiirhkooda u jaro xidhiirhkii ilaahay buu jaray man wasalanii wasalahu llahu waman qaacanii qaacahu llah xadiidkaa hore aynu soo aragnay inay ku ducaysatay ilaahay ka igooyana gooka ay xidhiiyana xidhiidhi waxa aynu ku xigsiin lahayn intaa fadliga markaynu soo tilmaamnay qaraabo xidhiinta diintu u sheegtay iyo balaayadii iyo musiibada loo yabohay qofka qaraabadii gooyey maxaa lagu xidhiidhinayaa qaraabada waa laga yaaba waxyaabaha qaarkooda aynu inagu u aragno inuu qaraabo xidhiidhin inaanu qaraabo xidhiidhin ahayn waxyaabaha qaarkooda aynu u aragno inaanu qaraabo xidhiidhin ahayn inuu qaraabo xidhiidhin yahay waxaynu aragnaa qaraabo xidhiidhinta qofka inaad isberber taagto shar iyo khayr wuxuu wadaba sowtol maaha kani xaggee looga hadhaa soomaalidu way mahmaano qaar malaha hadda in la isku raacsiin kale warkama haye waxay idhaaheen tol iyo kab midna lagama dhex baxo kabta haddaad sidaa uga dhex baxdo dee dhagaxaa faraha ku goynaya iyo qodxaanta tolkana haddaad ka dhex baxdo dee waa ama iyagaaba ku qabsanaya ama dhib baa ku soo gaarhaya macnaheedu waxay wadaan la wad wey hadday shar wadaan hadday khayr wadaan hadday dulmi wadaan maya dadka muuminiinta waxay ku wada socdaan wixii khayr ah waxay isku diidayaanay isaga naseexaynayaan wixii shara fii awali suurati almaa-ida ilaahay wuxuu sameeyey qaacido aayaad
aayad kooban baa wuxuu inoogu dhigay qaacidada lagu wada shaqeeyo lagu wada socdo tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan qaacidadaas wey ciddii samafal iyo wanaag waddo waa lala shaqaynaya qofku haddii uu xumaan la yimaado iyo dembi ka joog wey qaraabo xidhiidhintu waa taa idan markaa ugu horeynba ehelkeenna waxaynu ku xidhiidhinayno qaraabo xidhiidhinta ugu horeeya waxa weeye inaynu hanuunino oo hagaajinno oo halowga laga ilaaliyo nebi maxamed baa ilaahay ula hadlay calayhi salaatu wasalaam waandir cashiirataka alaqrabiin digniinsii dadka kugu dhowey weliba kuu xiga diin buu ugu baaqay intuu buur dhakadeed fulay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayuu qoloqolo ugu baaqay inay ilaahay iska dhisaan oy raali geliyaan oo xumaanta ay ka fogaadaan oo gaalnimada ka fogaadaan waxba idiin tari maaya buu leeyahy haddaa ilaahay ka fogaataan isagoo rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam wamur ahlaka bisalaati wastabir calayha ehelkaaga far salaada adiguna ku adkow waa rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam ee ilaahay dembigii hore iyo kii dambeba ka dhaafay ayaa waxaa la leeyahay ehelkaaga ilaali innaga maxaad u malaynaysa ummaddanna ilaahay uu la hadlay oo qaraabo xidhiidhinta ugu horeysaa inay tay dadkeenna inaynu diin ku badbaadino darxumada diin la-aantu ay leedahay inaanu ka badbaadino yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran naftiin iyo ehelkiinaba naar ka badbaadiya nooca iyo noocaa tilmaanteedu ay tahy waquuduha annaasu walxijaaratu calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad ilaa aakhir aaya marka inaynu ehelkeenna xumaanta ka joojinno ka wax dulmiyaya ka wax dila iyo ka wax dhaca iyo wax ka wax khiyaamaya iyo ka ummadda ku xadgudba iyo ka laaluush qaata iyo ka waxaanu lahayn baadi doonaya iyo ka iska dhigaya waxaanu ahayn in la yidhaha ka joog hebelow halkaa uma qalantida inaga dah aynagu dawaqin meeshaa keedii mahida inaga dah waxaad iyo waxaa maya laakiin qofkii oo qaatil oo dadkii laayay in la qariyo waa musiibo markaa taasi waa ta u horeysa in diin dadka lagu badbaadiyo wixii ilaahay raalli ka yahay aynu ku wada soconno waayo haddaad hiilinayso dhinacaagaad u hiilinaysa haddaad hiilinayso dhinacaaga u hiili waayo iilka marka la galo qaraaba ku raaci mayso qolamaatiina lagu odhan maayo jawaaske iyo jinsiyadeebaad sidataana lagu odhan maayo laakiin ilaahay muxuu ku weydiinayaa dee diin iyo iimaan baa lagu weydiinaya iyo ilaahay iyo rasuulka iyo islaamkaaga marka waa inaad haddaad hiilinayso dhinacaaga u hiili qaraabada taasaa ugu horeysa waxyaabaha lagu xidhiidhinaya waxaa ka mid a dhowr iyo 10 shay aynu tirinayno koow in la siyaarto oo lasoo booqdo sidoo kale in dee dadku ay iswaraystaan in wax la isu hadiyeeyo qof walba in meeshiisa la dejiyo dadka ehelka ah qof waxaa laga yaabaa adduun iyo anfac buu u baahan yahay midna waa odayo ama madaxo ama culimo ixtiraam u baabuu baahan yahay ee wax anfacaba kaama rabo dadka fuqaradooda ah in iyagana wax la taro wixii aad heli karayso wax farala oo saka iyo wax sunnaha sadaqaada kuwooda qanigaa si wanaagsan in loola noolaadoon cugdad loo qaadin laguna xaasidin wuxuu ilaahay siiyey ka weyn in la weyneeyo ka yarna loo naxariisto sidoo kale dee martibay wax in la martigeliyaabay xaq u leeyihiin in la martigeliyo oo ay ka ag dhowaadaan kuwooda baahan ka kugooyo laftiisa in la xidhiidhiyo oo aan la jarin in lala wadaago hadday farxayaan iyo haddii ay dhiban yihiin labadaba oo farxadda iyo naxdinta waa kale waa inahaynu kusii fiicanaynu sii hayno geerida iyo aroosyada iyo xafladaha in loo duceeyo in laabtaadu ay u caafimaad qabto oo dhacdhac kastaabaha ka yimaadeen aada cafiska iyo la ogaato laabfurnaanta dadkooda isa seego bulshada ama kuwaa qaraabada inaan la isku eegin dabka ka dhex baxaye dhexdooda la hagaajiyo qoysaskooda qabaa'ilkooda dhexdooda la hagaajiyo kuwooda buko in lasoo booqdo sidoo kale ka kuu yeedha xaflad leh in isagana la ajiibo oo aan la diidin arrimahaasoo dhammi qaraabo xidhiidhin bay noqon karaan tii diintaana ugu horeysa waynu soo sheegnay intan oo dhanbana diintaa faraysa wixii wanaagsan arrimaha markaas kaa saacidi kara ama inaga saacidi kara
inaynu qaraabadaa xidhiidhinno waxaa ka mid ah altafakuru fi alaahaari almutaratibati cala sila qaraabo xidhiidhinta raadka ka dhashay midhaha laga goostiyo natiijada inaad akhriyi karto wata ficiladii waad samayso qaraabadii baad xidhiidhisee maxaa ka yimi maxaa wanaag ka dhashay wallaahi intaasoo arrimoodoo wanaagsan baa ka soo baxay wixii aan bixiyey ciddii aan xidhiidhiyey dadkaan u samafalay intaasoo arrimoodoo wanaagsan baa ka soo baxay raadkaa in la akhriyo mar labaad in la akhriyo oo la eego annadaru fii cawaaqib alqatiica markay dadku isjaraan inay qiimeyn ku sameeyaan oo war hebel qaraabadii buu gooyey ama aduguba qaraabadii baad goysay horta maxaa ka soo kordhay dee waxaa ka soo kordhay in la kala tegey oo la isnacay oo adiguna aada wax ku weyday oo taana in la akhriyo oo la garto xumaanteeda waxaa ka mid a alisticaanatu billaahi subxaanah in ilaahay la kaashado oo arrimaha qofka muuminka ah tallaabo kastuu qaadaya ilaahay buu garabsanaya waxaa ka mid a muqaabalatu isaa'ati alaqaaribi bilixsaan waxyaabaha kaa saacidi kara inay qaraabadaada xidhiidhso waxaa ka mid a gafafka iyaga kaaga imanaya adigu wanaag ka horgee idfac bilatii hiya axsan wixii wanaagsan ka horgee wixii xumaana lagu sameeyey oo tilka bitilka ha odhanino intaasi ugu sameeya ana taasoo kale aan samaynay maalin heblaaye qofkii soomaalida hadal yar bay hibanayaan hadal yar baa laga yaabaa dad waaweyni inay mijhar iyo microscope saaraan oo dhacday yar oo mar laba qolo ama laba qof dhexdood dhacday inay weli hadal hayaan muddo dheer oo qofku soo kii maalin heblaaye caynkaagu ninka maalintii sidaa yeelay waxaasuna ay akhriyaan ay ku celceliyaan adigu hadduu qofkani xumaan sameeyey wanaag ka horgey qaaciduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam laysa alwaasilu bilmukaafi qaraabo xidhiidhiyo lama yidhaahdo qofka cidda u ixsaan samaysa un wanaajiya kuwa xumeeyana xumeeya laakiin qaraabo xidhiidhintu waxa weeye kuwa ku xumeeyey inaad wanaajiso ilaan kii kale waa kala ridasho hoo iyo hoo bay ahayd qofkii ku wanaajiye aadna waad wanaajisay qofkii ku xumeeyeyna waad xumaysay marka haddii kii ku wanaajiyo inaad wanaajinayso taa qaraabo xidhiidhin lama yidhaahdee waa laba qof oo isu jawaabo kala ritay ee qaraabo xidhiidhintu waxa weeye nafta lagu kalifayo ee lagu imtixaanaya qofkii ku xidhiidhiyey inaad xidhiidhinayso adiga arkay marka wadankii tagtaana dadka qaarkood wax siisaan qaar baa laga yaabaa inay saa u eegaan ay dhahaan inta maxay ahayd 10 sanaad maqnayd ama 5 sano intanaad la shirtid war waxaan kaa qaadi mayne soo kordhi inay kugu soo tuuraan baa laga yaabaa qaarkood haddaad u helayso u kordhiya waxaad tidhaa khayr allah ku siiya raalli haw intaasaa itaaliga ahaaye bal intana ku sii dar haddii kale inaad tidhaa intaasun baan heli karayaae khayr allaha ku siiya waa kugu ducaynaya intaa calafso laakiin aad tidhaahda keen annagaaba kaa waalayn ood cayna u raacayso ha yeelina sidaa isaga samra xayraanka nagu yaro badanaya way iska dhacdaa runtii qof yimid oo mudnaa isaguba in la casuumo oo dalkiisa lagu soo dhoweeyo oo la jeclaysiiyo isaga iyo ehelka uu wato ummadda iyo waddanka in lagu dhego oo dabeedna marka kaashka laga dhameeyo kabahana kolka dambe lagala baxo dumarkana la yidhaahdo bal adigu shandada waxa ku jira iska dhig xaggii baad ka iibsanay la qabso uun ha ka dhicin dadkeennii baan weli soo gaadhin halkaad marayse taasina waxa weeyaan wixii xumaana ka yimaada ehelka in la iskaga sabro qabuulu icdaarihim idaa khata'uu wactadaruu qofkii hadduu gafo oo uu cudur daarto in laga aqbalo cudurdaarka waan kuu gafeen raalli agaho ma ahayn caynkaa inaan kuu sameeye raalligaho hadduu ku idhaahdo waad mahadsantay ka aqbalay waalcudru cinda alkiraami maqbuulu cudurdaarka dadka sharaftale agtooda waa maqbuul waxyaabaha kaa saacidi kara waxaa ka mida tarku lminati calayhim walbucd can muaalabatihim bilmithl in aanad had iyo jeer wixii aada siisay soo qaadin oo aanad odhan maalintii heblaayana dacaynka intaasaan ku siiye dee intana ku dar ma xusuusantay maalintii halkaa aynu isugu nimeen intaa kuu dhiibay oo wixii inaad sheegto ama aad tidhaahdo dee war anaba ku siinay maalintaanu soo degnaba intaasaanu ku siinaa adigu miyaad neefna noo qalayn neefna miyaanad qalayn wax miliyana ha ka doonin hana soo qaadi wey ummadoo dhan uma fiicno kana way sii fogeynaysa
waxyaabaha kaa saacidi kara waxaa ka mid a qaraabo xidhiidhinta qof rag iyo dumarba tajanubu shiddati fi lcitaab wataxamulu citaabi alaqaarib wa xamlihi calaa axsani almaxaal in dadka had iyo jeer la iska daayo canaanta waxa la ydhaha canaanta dadka la canaananayo inaad iska dayso ka ku canaantana waxba adugu aanad canaanan waa samafalkii hore aynu soo sheegayn qaraabo xidhinta waxyaabaha saacidi kara waxaa ka mid a alictidaalu fi lmisaaxi maca alaqaarib maca muraacaati axwaalihim wa tajanubi almisaax maca man laa yataxamalu waa diraasaday culimada cilmu nafsigu sameeyeen in kaftanka badan laga daayo aqaaribta kaftanku waa inuu noqdaa sida hadalka dee sida raashinka in yaroo milaxa unbuu u baahan yahi laakiin haddii markay saragtaanba la kaftamo majliskii kaftan waxaa lagu qaadanaya uu noqdo dacaayaddii kaftan lagu sheego oo dee wuxuu noqonayaa warma la sito laysku mudmudo waxyaabaha keena in daqiinada iyo dadku inay kala cararaan ayay ka mid tahay runtii waana ta aynu odhan karno soomaalida weliba odayaashooda iyo ragga dhaqanka majaalistooda taasaa ku badan sooma nidhaahno majaalista taasaa ku badan inta halkaa la fadhiyo ee kafayga ama shaha la cabayo ama wadankii lowga la laabayo la marqaamayo la qayilayo miyaa la tasbiixsanaya mise qur-aan baa la akhriyaa deme waxaa la isku hurgufayaa gantaalo kaftanoo wada xadaafiir iyo xurguf midhan xambaarsan kadibna dee mid waliba ka kalu hoosta ka qaniinaya markaasuu berrita wixii ugu jawaabi lahaa oo isaguna kii hore ka xun ayuu isna soo diyaarsanaya ehelkoo qura maaha asxaabtiiyo ummaddana waa sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi innii la amsaxu walaa aquulu ilaa xaqan waan kaftamaya laakiin xaq mooyaane xumaan odhan maayo marka kaftanku waa wax yarood naftii lagaga qoslinayo o lagu raaxaynayo laakiin aan dembi iyo jariimo toona ahayn waxyaabaha saacidi kara waxaa ka mid a in qaraabada aada xidhiidhso kuu sahli kara almubaadaratu bilhadiya in xasala khilaafu maca alaqaarib dadka ehelka ah haddii xurgufu dhexdooda timaada in waxsiinta loo degdego waxsiinta waxaan la dhiibayaa adduunkan la dhiibayaa meel qoomantay buu subkaa oo u bogsiiyaa ilaa qofkii wax laga dilayba waa tin la yidhi xoolo magaha la siiyo marka qoonta dhaawaca yimaada ama qofka shucuurkiisa ku yimaada ama jirhkiisa xoolahan la bixinaya way bogsiiyaan xikmadda allah yaqaano subxaana marka qofkii aa isa seegteen haddaad gurigii ku booqataad maamuustaad waxu dhiibto wuxuu odhanayaa waxba isagu cuqdad kuuma hayo oba ka wax kuu keenayba adigun baabasho wax kugu siiyi markaa wuu hadal haynayaaba waanu isa seegno waxba u dhiibi maayo ka daa waxaa ka mid a waxyaabaha kaa saacidi kara alxirsu taamu calaa tadakur alaqaarib fi lmunaasabaati walwalaa'im walijtimaacaat addowriya in had iyo jeer dadka lagu dadaalo ehelka ah wakhtiyada munaasabaadka in aan la ilaawina la soo dhoweeyo waxaa ka mid a sanduuq lqaraaba dadka qaraabadii marka wax dhacaanoo qura un inaanay akown iyo sanduuq yeelanine mid iska si lagu sii talagalay inuu jiro oo wax la iska ururiyo oo waxaas meel iska yaalla qaraabada dhow kuwa kusii xiga iyo kuwa kaleba wax la ururiyo loogu talagalo wixii dhibee yimaada iyo ciddii waxtar mudan markaa qofkii qaraabadaha wuxuu odhanaya dadkani dad laga durka maaha adiga haddii adhowto wax kugu yimaadaan cidda wax loo diyaarinayabaata ummadda haka goosanina ka agdhowo buu odhanaya ilaha aynu soo sheegnay cagsigooduna waa waxyaabaha sababi kara in qaraabadii aada goyso waxyaabaha sababi kara waxaa ka mid ah asbaabta noqonaya asbaab alqatiica aljahl inuu qofku ka jaahil yahay hadduu qaraabada gooyo maxaa natiijo ah cuqubada ilaahay ka dhalanaysa ta adduunyada ta ijtimaaciga intaa midna ma garanayo ma qiimeyn karayo taasi waa sabab keeni karta inuu qofkii markaa fudaydsado dacfu taqwa diin yaraanta qofka haddii diintiisu weyn tahay dee diintu waxay fartay ayuu u heelanaanaya qur-aan iyo xadiidbana way dhiiriyeen dawi lqurba walqaraabaat in la siiyo xaqooda waxyaabaha sababi kara qaraabada goynteeda waxaa ka mid ah alkibr in kibir qofka qalbigiisa galo
oo dadkii qaraabada ahaa qaarkood uu ka santaago way dhici kartaa aqoon uu leeyahay oo sarraysa daraaddeed awood uu leeyahay oo qaar ducafaa uu ka santaagayo adduun uu leeyahay oo qaar fuqaro ehelkiisa uu leeyahay aan lagugu arkin kibirka noocaasi hadduu qofka qalbigiisa dhaco ummaddiisii ehelkiisa wuu ka durkaa sidii inankii hooyadii baadiyuu kaga tegayoo ameeriku jaamacad ka soo baxay isagoo shahaado weyn sita ayuu soo noqdo markii uu miyiga ugu yimina islaantii iyo alaabteedii iyo wixii buu leeyahay kan jarmis baa ku jira kan jarmis baa laga qaada hooya kan tuur kan iska daa waa meeshii uu ku dhashayba marka waxaa la yidhaahda kibirkana qalbiga qofka wuu dilaa waa cudurrada alamraad alqalbiya kuwa ugu dhib badan weeye saynu horeba usoo ishaarnay alcitaabu shadiid kii kuu yimaadaba haddaad mawjad canaana ku hurgufto iyadana waa kala yaac weeye qilat lihtimaami bizaa'iriin waxyaabaha sababi kara inay dadku ku nacaan ehelkii waxaa ka mid a dadka kusoo booqdo oo aanad miisaan u yeelin ama eeginba aday kuu yimaadeen adiguna waad iska weydaaratay ma heblaayaa dhaaftay ma hebel baa dhaaftay waraysiba ma jiro dee maxaad uga iman kuma doonayaba kaniga marka qofka shucuurkiisi ayaa ay wax ku imanayaan ashuxu walbukhl bakhaylnimada iyo adaygnimada oo qofkii wixiisii uu haysto waxaan aynu hayno ilaahay baa ina siiyey laakiin amar buu raaciyey ummaddana ehelkaana ina wax ka siino isagii ina siiyey ayaa wuxu uhi waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih waxaa ilaahay uu idin siiyey ee uu idiin dhiibay dee khaliif baa kaga tihiin oo mustakhlafiin baa ku tihiine waan idiin dhiibee dee wakiil baa iga tihiina bixiya naftina waxaa la idhahaa jubilat اlanfus bixubi man axsana ilayha wa bibugdi man asaaa ilayha qofka waa xikmad carbeed qofka waxa iskaga abuuran cidda wax siisa inuu iska jeclaado markaad dadkeena eegto qof badanaysa bal hebel ka war waxay wallaahi u wanaagsan nin wanaagsan wey oo maxaad ku qiimaysay dee markuu ku arka waxbuu kuu dhiibaya aba laga yaaba inay ku idhahdaan mijintuu kuu qaadaya mijintu dee waa marqaankoodii haba ku gafsanaadaan waxbuu kuu dhiibaya waa arrinta ay dee gaaladu imika isku dayaan dadka muslimiinta ah hay-adooda wax bixinaya maxay uga jeedaan ma ilahay baa ajri kaga doonaya miyay iska bixinayaan waxay doonayaan maya dadka quluubtooda la rabaa in la qabto waatuu islaamku qabay markii la qaybinayay sekada iyo qaybaheeda kala duwan dad mu'alafatu quluubuhum baa jira qaar qalbigooda la soo dhoweynayo oo hay-adeenna samafalku waxay ahayd in ay dadka islaamka ku soo dhow iyo kuwa soo islaamay ee gaalada inay wax siiyaan bay ahayd oo sekadeenna la siiyo oo lasoo islaamiyo iyagiina dadkii inay gaaleeyaan bay u taagan yihin marka ha sahashanin mashaariicda la bixinayo iyo waxaan ay had iyo jeer dee muslimuun baabay malaa ka soo qaadaane ay sii siinayaan dadka istaraatiijiyadaasaa laga leeyay cidina wax bilaash uma bixiso qofka bilaash wax u bixiye iyo xikmad la-aan nooc waaliyaa ku jira inagu waxaynu bixinayno waxaynu wax kaga doonaynaa ilaahay subxaana wa tacaala qofkaan iimaan lahayna wuxuu bixinayo dee hadaf kaluu ka leeyahay marka saa in la ogaado weeye idan markaa waxyaabaha sababi kara goynta waxaa ka mid a bakhaylnimada waxaa laga yaabaa in qof akhlaaq wanaagsan oo diintiisu fiican tahay oo isagu isku filan oo in qofka ehelkiisa markaad weydiiso aad tidhaa hebel ka waran ma fiicna buu ku leeyahy maxaa dhacay waa gacantigoday buu ku leeyahy jeebkaba gacanta gelin maayo gacantigoday waxalla wuxuu kuu dhiibaya male kelidii haan leh isagunbaa isku filan buu ku leeyahy wahay adigu ma waxbaad u dhiibatay mise waxbuu kuu hayay waxba iima hayn laakiin dadka in wax siyaaba ahayd buu ku leeyahy wuu garnaqsanaya marka taasina iyaduna runtii waa midku xisaabtan leh inkasta oo dee dadka wixii ay doonayaanna in la eego ay tahay oo qofku hadduu wuxuu doonayaa uu yahay wax isaga balaayo kuwa ama balwad dee in lagu raaligeliye maaha aabbaha ama ehelkaagiioo doonaya marqaan jaadiyo sigaar doonaya wuu doonayaaye u dhiib maaha dee laakiin qofka wax la siinaya waxa weeye qofkii meel wanaagsan u isticmaalaya ehelkiibuu wax siinaya anfacay cunaan buu siinaya aradbax buu u siinaya wax si un maaha arrintu laakiin waxaan halkay ku baxayaan wey ma wax dheefu leh baa mise waa wax dhib ku leh intaa aynu ku xisaabtanno wey runtii sidii horeba aynu usoo sheegnay in qaraabadii la ilaawo in kaftankii la badiyo iyaduna waa sababaha keeni kara isnacaybshiya
waxyaabaha keeni kare sabab u noqon kara qaraabadu inay isgooyaan waxaa ka mid a aطalaaqu bayna alaqaarib furiinka dhex dhaca dadka wax kala guursaday qaraabada ah oo qaraabadu inay kala guurka in la yar durkiyaa fiican oo dad kala deegaanihi ay isguursadaan iyadoo qof walba dabcan ilaahay u qadaray meeshuu marayo haddana in istiraatiijiyaddaa laga duulo wey walaa carabtaa la joogtaan waaba isku yar noqnoqdaanuune laakiin dhaqanku wuxuu ku wanaagsan yahay fiqiga kutubta fiqiga waxaa ku sugan allaa takuuna qaraabatan qariiba inanta la guursanaya inaan ahayn qaraabo soo dhow laakiin waa inay tahay qaraabo sii yara durugsan oo kala deegaantii marka qatiicatu raxim in riximku isgooyo sababaha keena waxaa ka mid a dadkii qaraabada intay isguursadaan haddana isfuraan haddana furiin dhex dhaco dee qolana inankiibay la safanaysa qolana inantiibay la safanaysa kadibna waa la kala boodo waa la iskaraahiyeysta dad ehel ahaa ayaa furiinkaa isku nacay culamadu markay diraaseeyeen waxay leeyihin waxyaabaha sababta u qaraabogoysnimada waxaa ka mid ah ataqaarubu fi lmasaakin in dadku ay xaafadaha wada galaan ehelka ah oo sababtan ummaddiiba la kala firdhiyaha odhanini waxay leeyihin maalan inay dadku guryaha wada galaan ama aada isu dhex galaan iyadana way keeni kartaa isku dhaca saa daraaddeed ba haddii duruuftu saamaxayso in la kala dega ay tahy oo guryaha ay dadka u kala go-naadaan waayo dumarka iyo maatida waxaa dhacda markay wadaagaan wax yowmiya kitchenka iyo daaradda iyo xamaamada iyo alaabta iyo marka la wadaago waxaa isku dhacaa soo degdega dabeetana waxaad arkaysaa hooyadii oo ay haystaan gabadhii inanka iyo hablihii baaba dagaalamaya soomaalida waa kii ka mahmaha waxay idhaahdeen jinacaa lagu ihi jinacow maxaa kaasii ur xun wuxuu ihi xidid wada yaalla yaad maqashay mahmahda xidid wada yaalla xididku inay dee kala yar durkaan weeye ay carabtu waxay tidhahaan zur khiban tasdad xubban marmar dadka booqo jacayl baad kororsanay laakiin markay arrimahaasoo kala wadaagaan heblaaye maxaad halkan u masixi weyday dee adigu masax oo alaabtaydii meeday dee maanadii weydiinaysa waaba la islaayeyba markaa cumar baa ka warramay arrintaasoo cumar bnu lkhadaab murabbiintii asxaabta ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa uu ku rabeeye waxau ihi muruu dawi lqaraabaat an yatasaawaruu walaa yatajaawaruu waxaa u sheegtaan dadka qaraabada ah inayse soo booqdaan oo aanay isku dhex daadanin oo aanay isdhexgelin guryaha weliba isagu jaar buu cabiray caruurtuna had iyo jeer way isqardoofaan oo way islaayaan maatiduna sabirkoodu dee marar badan baanu sida ragga u sahlanayn marka taa qudhigeeda dumarku weligoodba ha yidhaahdaan dee xaafadna wadageli isku maqsin baanu gelayna isku guri baanu gelayna haddii duruuftu saamaxayso weeye in la kala dejiyo oo saa isku jeclaadaan waxyaabaha keeni kara qaraabogoysnimada ama qaraabadu inay dee isnacdo waxaa ka mid ah alxasad waa cudurada qalbiga ku dhaca dadka qaarkood baa qaraabogoysnimadiisu sabab kale aanay lahayn ilaa inuu xasaduun ku jiro mooyaane hebel isku qolaanu ahayn shalay baanu meel wada joognay isku ciyaal baanu ahayn imikuu dhergayo dabeetana markaasuna dhaafdhaafayaa buu ku leeyahy war wax kale miyuu ku dilay maya wax kale miyuu sameeyey maya waar imika markuu xoolaystay dadka ma yaqaano hadduu doono waxba ha siiya lakiin xasad baa gelaya qofkana xasadka waxa la yidhahna wuu yaro dhib badan yahi mucaawiya radia allahu canhu allaha ka raali noqdo asxaabtii nebigu ka mid ahaa sida ogsoontiin dee waa madaxdii muslimiinta waxa uu lahaa kula naasi astaiicu an urdiyahum ila alxaasid fainahu laa yurdiihi ila zawaalu nicmati cani dadka aan la dhaqmayeen isqabano waan isku dayaa inaan qof walba raali geliyo ama aan qanciyo ilaa qofka xaasidka mooyaane xaasidka ma qancin kara buui ilaa waxa uu igu xaasidaya ay weydaarto waxbuu igu xaasidayaa waxaa jeeroon waayo dee ma nafisaya buui marka wuxuuba igu haystaayoo uu ka xun yahay waxaan ilaahay siiyey idan markaa kaa waan qancin kari waaya bu laakiin dadkii kale qanciye marka cudurkaasina qofku markuu isku arkay inuu naftiisa ka suuliyo wey sababaha qatiicatu raxim waxyaabaha u sabab noqon kara waxaa ka mid ah taakhiiru qismati lmiiraah dhaxalka oo qeybtiisa la dibdhigo qeybtiisa
dadku dee waa eheloo marka uu waalidkii dhinto ama qofkii ehelkooda ahaa uu dhinto dhaxal ay wada leeyihiin inay dhaxalkii qaybsan waayaan. soomaaliduna had iyo jeer miyi iyo magaalaba qaybo ka midii waxyaabaha ay caadaystaan bay ka mid tahay inay idhaahdaan yaan dadku ina xamanin waxna inaga sheegin hunguri weynaana la inoo malaynin ee waxaynu ha isugu keen jireen. reer hebel baa baaba-ay yaan la odhanine waxaynu weli haynoo midaysnaadeen. midaysnaantaa waxaa ka soo baxaya dadkii inaanay wada joogina qaar maqan yihiin. waa laga yaabaa xaalad badan oo qaarkiin haysata inay tahy taa aynu sheegayna. qaar baa debadaha ku maqan qaarna wadankay joogaan. kii wadanku wixii buu iska biishanaya, daarii buu iska masruufsanayaa, xoolay buu iska cunayaa, waa dee waxaagii buu leeya uu wadaya. kan kalena 10 sano ama 15 buu maqan yahay, hoostuu ka xisaabsanaya isaguna wuxuu leeya intaasuu cunayo intaasaa ku baxday, kumanuu soo ogeysiin. waxaa laga yaabaa maatidii dumarkii oo kale oo reero u dhaxay in iyagii la yidhaahdaba dee maxay iyadaaba yarad iyo gabaati laga doonaya reerkii guursadaye dhaxalkay doonaysaa waa maxay oo iyana loo aamuso. hooyadii sidoo kale mid markaa inuu mid yidhaahdo anaa maamulka ku fiicanoo wixii wadaya idinku ciyaal baatiina aamusa uun. cuqdad baa markaa guntamaysa. qayb ka mida markaa qaraabada waxa laga yaaba inay qaraxda marka dambe way qarxayaanoo cadho iyo ciil bay la soo boodayaanoo qofkii inay dilaan baaba laga yaabaaba ama qoryo la isu qaato la isku laayo dhaxalka. haddii isku jiristu fiican tahayna ilaahay baa isku dayn lahaa subxaana wa tacaala. marka qofku uu dhinto markay naftu ka baxda intaan la aasin bixaq u leeyin inay qaybsadaan wax ku xidhan ma jiro. kol haddii daymihii iyo laga bixiyo wixii xuquuq ahaa ee xoolahan ku jiray laga bixiyo tajhiiskii qofkan dhintay iyo wixii lagu aasi lahaa, kol haddii intaasi dhammaato warku waa qofka yidhaha waxayga igu shuba waxa ka furan hoo. laakiin in la yidhaahdo waad iimaankaagaa sidaas ho ama waadan guri weyntaa weli qofkii on lafihiisii kala googo-in hebeloo weli xabaashii kala googoosan baa doonaysaa wax in la yidhaahdo waxyaabaa la isku naco wey. inahaasi waa inaha diraasadda lagu sameeyey ee runtii waxna ka jiraan weeye. qaraabo goysnimada sabab u ah waxyaabaha kolley sababta waa waxa ka mid aynu imika inagu dareennay inuu qofku bay-o kale ku koro oo bulshadiisa dhexdeeda aanu ku korin. imika da-yarta wadamada gaalada ku koraya ma ka sugaysaa inay qaraabo xidhiidhiyaan ilaa cid ilaahay uu hanuuniyey mooyaane. wuxuu la nooliyey dad aan aqoon qaraabo ayaad sheegaysaa waalid aan aqoon oo ehelkoodii iyo odaygii iyo islaantii ka dhaqaajiyey oo ubadkoodii xanaano la geeyey buu la noolyahay. ninbaa wuxuu ii sheegayay maraanu Canada joognay, laba yaryar baa aabbahoodun bay arki jireen isagoo $100 hooyadii u diraya. kadibna way weydiiyaan waxay dhahaan 100ka xagaad u dirtaa? ayaydiin baan u diraa hooyaday. iska aamuseen. iyaguna waxay leeyihin 100kan talo muu idin siiyey amase saaco ka dhigateene odaygani meel baasta uu kusii wado. maalintii dambe islaantii dhimatay. kolkaasay odaygii oo murugaysan bay arkeenoo maxaa kugu dhacay bay idhaaheen. maanta hooyaday baa dhimatay, ayaydiin baa dhimatay. kolkaasay iska aamuseenoo way isu iljabiyeenoo waaba la ishambaliyeeyeyba labadii yaryaraa. taasina hayna dhaafto 100kii inagu inoo soo hari doonaaye taasina haynaga sii socota bay dhahay. iljabintoodii buu ka fahmaya inay ku farxeen. marka taa macnaheedu waxaan uga jeedaa ummadda la nool environment kale ama deegaan kale ku nool bay-adu dadka alinsaanu ibnu bay-ati baa laya. qofka bani aadamkii bay-ada iyo deegaanka uu ku nool yahunbuu walad u yahay. koobigunbuu noqdaa, dhaqankoodii buu yeeshaa ilaa cid ilaahay u aruuriyo dee rabaayad gaarana heshay mooyaane. sidaa daraaddeed rajada laga qabo da-yarta ku dhalanaysa ama ku koraysa wadamada gaalada ma badna. jiilkan iyo qarnigani markay tagaan waxaa laga yaabaa inaanay ina garaninba. maalinba maalinta ka dambaysa in xawaaladu sii yaraato, lacagta lasoo xawilaya sii yaraato. marka dadkii waaweynaaye halkan ka tegey ku garanaya ay dhintaan, kuwa yaryar laa yacrifuunak walaa ya'tuuna ilayk, kumana imanaya kumana yaqaanaan. marka bay-ada laftigeedu saameyn bay maaragtay ku leedahay. kala maqnaanshaha laftiisuna waa sidoo kale. qaraabo xidhiidhinta waxyaabaha u sababa waxaa ka mid a wada joogga iyo iska agdhowaanshaha iyo isbarashada. soomaalidu waxay tidhaha oodi ab ka dhow, oodi ab ka dhow.
macnaheed labada qof ee ooda isku ama gurigooda isku xigaya ama oodooda isku dhegan tahay abtirsiimada way iskaga dhow yihin leanna waxbay soo wada cuneen way soo wada koreen waayo adag bay soo wada mareen sidaasoo kale weeyo labada qaraabadeen isba aragba ama aan isba aqooninba iyaguna waxaa laga yaabaa in xiriirkoodu daciif noqdo kuwaasina waa asbaabta ugu dambeyntii qaraabada goynteedu wax sahlan maaha waxay noogu filan qisadii abubakar nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisiina abubakare caaisha saynu ogsoonahay niman munaafiqiin ahaabaa sina iyo xumaan ku sheegay mu'miniintii kale ee iimaankoodu wanaagsanaan munaafiqiin ahayn qaarkood baa erayadii ka qayb qaatay la celcelinayay qaraabadii abubakar nin ka mid ah ayaa hadalladii ku dhex darmay ina abubakar wax laga sheegay abubakar arrintii ninkaa isaga ee wax ka sheegay inantiisana ee qaraabada ahna biil buu siin jiray uu cadhooday abubakar wuxuu yihi mar hadduu ninkaas aflagaadadii munaafiqiintu inantayda aflagaadeeyeen xaaskii rasuulka uu ka qayb qaatay biilkii waan ka jaray saacaddaa laga bilaabo waan ka gooyey buui biilkii qur-aan baa soo degay ilaahay baa la hadlay subxaana wa tacaala inaanu arintaa ikhtiyaar u lahayn isla markaana yeeli karin fii suurati nuur aayadda 22 ilaahay baa wuxu uhi walaa ya'tali ulu lfadli minkum wasaca an yu'tuu uli lqurba wاlmasaakiina wاlmuhaajiriina fii sabiili اllah waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum wallahu gafuuru raxiim toos baa ilaahay ummaddii ula hadlay oo wuxuu yihi yay ka dhaaranin kuwa wax hayste ee deeqda ilaahay uu siiyey inay wax siiyaan dadka qaraabada ah masaakiinta ah qaxoontiga ilaahay daraaddii usoo qaxay ha cafiyeen oo ha iska dhaafeen wixii loo geystay miyaydaan jeclayn inuu ilaahay idiin cafiyo gefkaa gasheen oo idiin dhaafo marka abubakar wuxuu ihi ha waan jeclay inuu ilaahay dhaafo sidaasuu dabeetana ugu soo celiya biilka idan markaa gef dhacay wixii aada bixinaysay ficil jawaabha uga dhigay inahaasi kolley waxa weeye qodobada aynu ka soo qaadan lahayn mowduucu waa ballaadhan yahay waktiguna wuu soo celiya waxaynu kusoo gebagabayneynaa innagana waayaheenna waynu ognahay aada adaygna runtii waa laynagu xantaa soomaalida nin baa wuxuu nin gaalaanu saaxiib ahayna wuxuu arkay soomaalida soo maraysa ee uu u shaqaynayo wax badan oo ka mid a waad mahadsantayna ma yidhaahdaan iga raali noqona ma yidhahdaan markay wax weydiisanayaan cafwan iyo fadlan iyo shukran iyo xibow ka waay marka wuxuu waxaan ku weydiiyey miyaanay afkiina ku jirin waad mahadsantay nae way ku jirtaa buui haddaa kuma aragna buui kuwa kula socda shukran iyo thank you waxbuu ka waay markaa qofkii waxba yuu ku ogaanin waxba yuu ku mahadnaqin wixii aynu bixin kara inaynu bixinaynaa ummadda wixii lagu tari karana waa lagu tarayaa qaraabaduna sida aynu hore usoo sheegnay mafhuumka iyo macnaha ay leedahay kaa ballaadhan weeye ee ku yaroo kooban oo kildhiyaysan oo kildhigaa yar ah yaynaan ka dhigan aada iyo aad baa umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu